leedahay isticmaalka cusbada badan. Kelyuhu waxay ka shaqeeyaan tuuridda dheecaamada uusan jidhku rabin iyo miiridda dhiigga. Kelyuhu waxay u tuurayaan dheecaamada haraadiga ah kaadi haysta una beddelmaysa kaadi. Markaad qaadatid cusbo badan, waxay cusbo badani ku baaqaynaysaa kelyaha, carqaladeynaysaana inuu kelyuhu miiro dhiigga ama uu dheecaamada uusan rabin jidhka bannaanka u tuuro. Waxayna kaloo sababtaa inuu yimaado dhiig cadaadis ama dhiig kar, kelyuhuna fadhiistaan. Tanina waxay imaanaysaa markii ay kelyuhu miiri waayaan dheecaamada. Xanuunka wadnaha. Markii cadaadiska dhiiggu kacsan yahay, sababayna cunista cusbo badan, waxaa si weyn dhaawac u soo gaaraya xididdada wadnaha, horseedaysaana wadne garaac. Maxaa yeelay wadnuhu heli maayo dhiig deeqa iyo oksijiin. Waxaa ku samaynaysa shaf xanuun, haddana qarka u saaran yahay istaagga wadnaha. Baradhida xididka. Markaad la nooshahay dhiig kar uu sababay isticmaalka cusbo badan, waxaad cadaadis ama cabur saaraysaa xididka. Si uu ula dhiilgaleeyo cadaadiskaas, duleelka xididka ayaa kala baxaya, hoosna u dhigaya kiriimada ee kala baxa, wadiiqo yarna siinaya socdaalka dhiigga, taasoo qulqul u keeni karta socdaalka dhiigga, kadibna balaadhinaya duleelka xididka. Lafo jajab. Isticmaalka cusbo badan waxay badinaysaa heerka maadada sodium ee lafaha, sababaysana in calcium-ka oo ah awoodda lafaha uu kaadi ahaan u soo baxo.